madaxweyne xasan sheekh waa ku khaldamay inuu jareer generaal siiya miya macnaheeda mataasay ka turjumaysay ilaa hadda iyadoo la garan laayahay oo dadka ee ugu kartida badan ee militariga laga sheego haddii bilad lagu siin lahaane waxqabad ninkii ilaa iyo qalimow ilaa iyo buurhakaba wixii la isbaaray ninkii qaaday markuu ka soo goosanayay meeshii awr uu ka tirsanayay hubku la soo galay 14 technique iyo intaasoo 100 oo qoryo ayaa maartay ciidan ee si aad u tababaran oo la yaqaano dowladda la soo galay awdheegle asaga xoreeyay ma gartay ninka sidaasi ahaa ee meeshii laga sugayay in la abaal mariyo ayaa waxay noqotay in dambas madaxa loo geliyo generaal sheegow haddii dareen shacab la tixgelinayana dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay muujiyeen dadkii isaga maanta uu matalayay haddii dariiq dowladnimada in lagu garbaxane madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa codsi inuu soo dhex galo arrintaasi oo loo arkay arrin dulmi lagu sameeyay jananka waxyaabaha lagu eedeeyayna wax muuqda oo maxkamad la hor keenay aanan jirin lacag uu daabacaya la yiri makiinadii lacagta daabacaysay lama arag nin kale oo afhayeen boolis ah wuxuu sheegay telefoon ayuu dhacay telefoonada dadkii uu soo qabtay telefoon niiclayaal ay ahaayeen nin lacag dhaqaayo oo dollar asaga makiinad guriga u taalo ayaa haddana ciidankiisa inay mobile oo niiclayaal ay soo dhacaan adiga aqligaaga isu keen garaadaha madaxweynaha asaga bixi oo abaal aan uga hayno iyo saraakiil kale markhaati bay leedahay warqadii saxiixiisa waa la hayaa nin baa dhahay beeraley buu ahaa ninkan marna uu leeyahay laba xidig leh oo isagoo darajadiisa laba xidig leh ay tahay madaxweynahana wuxuu maanta u leeyahay awood isbatoor asagoo xataa qaar ayagoo dhan marin oo hadda janana iska ah inuu yiraahdo janan baa tahay kabtan waxuu sheegayaa asigoo saraakiil uu ahaa kabtan uu ahaa kan madaxweyne kabtan iyo xidig leh wixii ka koreeyo isaga dalacsiyo awoodna waa uu leeyahay laakiin in dekreetadii madaxweynaha ay taalo inuu nin askari oo laba xidig la ah inuu ka yiraahdo maxkamadda horteeda madaxweynaha warqadiisii waxay u dhigtay false way u dhigtaa mugtay ilaa ama madaxweynaha awood uma leh inuu gaarsiiyo waa la isweydiiyay macnaheedu maxay ka turjumaysaa tan ilaa waagi cidda ee generaalka ee anaga nagu yaraa ee aanaba haysanin ayaa ciddayna waxay ku shirbi jireen oo jaalasiyaad waqtigiisa jaalosiyaad weli waa jiraa jubka hoosaadkii ma gartay maxaa jirooy generaal jareer loo waayay marka waxa way madaxweyne xasan sheekh waa ku khaldamay inuu jareer generaal siiya miya macnaheeda mataasay ka turjumaysay ilaa hadda iyadoo la garan laayahay oo dadka ee ugu kartida badan ee militariga laga sheego haddii bilad lagu siin lahaane waxqabad ninkii ilaa iyo qalimow ilaa iyo buurhakaba wixii la isbaaray ninkii qaaday ninkii asaga ee laanta buur ee ciidankii asiga uu fadhiyay lagu dhici waayay in habeen inta la soo weeraro oo asaga la furto wixii asaga ee dowladda ee hub markuu ka soo goosanayay meeshii awr uu ka tirsanayay hubku la soo galay 14 technique iyo intaasoo 100 oo qoryo ayaa maartay ciidan ee si aad u tababaran oo la yaqaano dowladda la soo galay awdheegle asaga xoreeyay ma gartay ninka sidaasi ahaa ee meeshii laga sugayay in la abaal mariyo ayaa waxay noqotay in dambas madaxa loo geliyo laga daba qayliyo gurigiisii wixii yaalay la qaato dib loo geysto waa dagaalamay isagana waa la dagaalamay Soomaaliya laba ciidan dagaalamay bay ahaayeen laba beelood ma ayna ahayn anaga waa dadka ka soo horjeestay baan kamid in la beelayo la yiraahdo sheego reer hebel ayaa ku soo duuleen oo reer hebel oo xiran yahay anaga sheego inay dawladda
ciidan magaceeda labiskeeda wato inuu soo duulay amar qaadanayaan iyagan ee la soo amray ayaan ummadeena aan u sheegay oo kula dooday oo Georgia ereyga idinka la idin soo galiyay malaha afka ee dadka qaarkood intay soo fariistaan media reer hebel waaye ku hayo anaga hadii cid ayada ciil ay u qabtay oo reer hebelnimo sheego ay ku raadsanaysay kullayba taariikhda isma qarisay soo bixi doonte laakiin dawladdii loo gardhigtay ee maxkamadiina la tagay 10 sano ay ku xukuntay dil baa dhacay isagana waxba laga dilay isagana wax buu dilay dawladdan waxay caado u lahayd laba ciidan markay isku dhacaan inay xaliso haddii xataa nala yiraahdo laba qabiil ay ahaayeen waxa isku dhacayna de Soomaali way isu gardhigataa gogolna way isu fidsataa reerihii sheego wuxuu ku dilay naga mar reebana inaan iraado walaalayaal walaalka caduftiisa day ku gaarto xataa asagana inuu ku yiraahdo raalle oo adigana inaad tiraadid sidaas oo kale ayaa la mudan yahay waa un dhamaan lahayd waqtiga waa la kala garbixi lahaa ila maalin walba waxba la iska dilay reerba inta kale ayaa inta loo tagaa la yiraahdo ayaa dhibkaas ay ka tirsanayna sidii Soomaalida ee isku xallin jirtay laakiin hadda maxkamad bay tagtay Soomaa gacan dawladeed bay ku jirtaa taasi waxaan ka sugaynaa cadaalad falkeeda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dalka ugu sareeyo ninkii garaadaha lagu qabsaday ninka si isaga u yahay shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah